Kii Oktoobar 1969 waxaa shacabka Soomaaliyeed u dhalatay dowlad kacaano militari ah kaasoo hogaaminaya Jaale Maxamed Siyaad Barre. Dowladdii kacaanka ee militariga ayaa ah dowladihii ugu awoodda badnaa ee soo mara waddankeena Soomaaliya. Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa ah madaxweynihii ugu horreeyay ee ansixiyay in la qoro farta Soomaaliya, kaasoona ah madaxweynihii ugu fiicnaa ee soo mara dalkeena Soomaaliya. Dowladda cusub uu hogaaminayo Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa u ballan qaaday inay bari doonaan nolosha cusub ayna ka soo saari doonaan noloshii reer miyiga ah. Dumarka iyo carruurta waxa uu u ballan qaaday inay bari doonaan iskaylisyo cusub, xirfado ay ku baran doonaan noloshoodana ay ku maareyn doonaan. Dowladda cusub waxay si fiican ula tacaali jirtay waa dumarka iyo carruurta, kuwaas oo ay bari doonaan xirfadooyin kala duwan ee nolosha ay kaga maareysan karaan ayna kaga bixin karaan noloshii reer miyiga. 1972 ugu dambeyntii Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya waxa ay qortay luqaddii ugu horreysay ee Soomaaliya lagu qoro. Inkastoo Soomaaliga lagu hadli jiray, hadda waxaa la bilaabay ololihii luqadda lagu qori lahaa 1972. Xukuumaddii militariga uu maamulayay Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa wuxuu ku xukmay waayeel coon iyo ciroole carruur qof walba inuu barto luqadiisa fartiisa Soomaaliya, waxaana lagu qori jiray meelaha ay degaan miyi iyo magaaladaba. Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa xukuumaddiisa ku amray inay tagaan miyi iyo magaalaba si ay wax u bartaan. Dadka reer guuraaga ah siday wax u qori karaan ayna wax u akhrisan karaan. Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa kor u dalacsiiyey sidii uu qaadi lahaa heerna u gaarsiin lahaa luqadiisa fartiisa Soomaaliya. Gabdho badan oo baadiyaha ku nool ayaa kaga yimid baadiyaha una soo guuray magaalka, kuwaas oo laga dhigay dadka abdheedka ee ku dhaansigaray jiray tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed. Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu dareensiiyey ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadan karaan dowladda dhismatay iyo hoggaanka Soomaaliyeed dumarka. Sidoo kale waxa uu dareensiiyey inay yihiin Soomaali haddii ay ku nool yihiin magaalka miyi iyo magaalaba. Waxay ku dhaansigareyn jireen tiyaatarka qaranka. Xukuumaddii Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu si fiican wax ugu qabtay, si fiican ugu dadaalay dumarka iyo carruurta, kuwaas oo kaga mid dhigay dadka ugu fiican ee Soomaaliya. Kadib tiyaatarkii qaranka waxa uu kala bixiyay kooxahaas oo u kala baxeen awalada waa beri, kooxay Boondheere, Heegan, Horseyd iyo kuwo badan aan la soo koobi karin intaan lagu soo koobi karin. Jaale Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistee waxa uu qabtay Soomaaliya, waxaana la is dhihi karaa madaxweynihii ugu horreeyay abid